Xaaskan ayaa ninkeeda ka baxsatay iyadoo aan bixin wax digniin ah waxayna horey u qaadatay 65 milyan oo dollar. Amiiradda ayaa iska dhiibtay dalka Jarmalka waxayna ka codsatay Amiir Sheikh Maktoum inuu furo iyadoo horey u kaxaysatay 2 cunug oo ay u dhashay. Arrintan ayaa xumeysay xiriirka Jarmalka iyo Imaaraadka. Inkastoo ay Amiiradda Haya bin Hussein ku jirto nolosha ugu sareysa caalamka, haddana way isaga tagtay. Waxaa qabay ninka bilyaneerka ah ee Dubai waxayna u haysay 2 carruur ah oo yaryar. Wareysi dhif ah oo la helay oo ay bixisay bishii Agoosto ee sanadkii hore waxay kaga hadashay dhibaatooyinka ka jira qoyska misana faahfaahin. Waxaana hadda laga warhelay inay u baxsatay Jarmalka iyana carruurteeda sii kaxaysatay. Lacag dhan 65 milyan oo dollarna hore ay usii qaadatay. Arrinteeda ayaa kicisay khilaaf soo kala dhex galay Jarmalka iyo Imaaraadka Carabta. Amiir Sheikh Maktoum oo ah ra'iisul wasaaraha dalka iyo xaakimka Dubai ayaa aad uga carooday arrintan, waxa ayna dowladda Jarmalka ka dalbadeen qoyska dib loogu soo celiyo. Jarmalka way diideen arrintan waxayna amiiradda u sameeyeen ilaalo gaar ah. Sheekha gabadhiisa oo dhowr iyo 30 sano jir ah ayaa fariin ay soo duubtay waxa ay ku sheegtay in aabaheeda uu ka dhigay xabsi guri. Gabadhan oo qoyska horey uga baxsatay dibna ugu soo celiyay iyadoo dadka xuquuqda aadanaha u dooda ka walwalsan yihiin waxa ay ku dambeyn doonto.